macallinimadu waa shaqo la qabto shaqada ugu wanaagsan weeyaan shaqo bilaadan la qabto oo macallinimo ka wanaagsani ma jirto marka xilligii aan anagu macallimiinta ahay inaanu fiilka ku soo jirnay maanaan heli jirin tababarada noocan oo kala ah nin dayara oo miyi ku dhashay oo hooyadii aabihii aanay waxba baran ayaa intuu wax barto madaxweyne noqdaa oo macallin kasto isku dayay inuu xun wixii uu garanayay wax ku sii daro ama wixii uu garanayay boorka ka yara jafo ama ugu yaraan isagoo og oo haddana bal wax sii kordhi runtii dadaal muuqda oo meel cad ku gaadhay baa macallinka u muuqda jaamacadda Adnaadan iyo ururka dhalinyarada Uhdaas ayaa soo gabagabeeyay tababar ay u qabteen 40 macallin tababarkan oo uu qabsoomo si sanadle ayaa sanadkan waxa ka faa'iideystay 40 macallin halkaasi oo lagu gudoonsiyay macallimiintii uu soo dhamaaday tababarku shahaadooyinkii tababarka munaasabaddan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta jaamacadda Adnaadan iyo mas'uuliyiinta ururka iyo sidoo kale macallimiinta iyaguna tababarka bixinayay iyo macallimiintii la siinayay mas'uuliyiinta kala duwaneed ee madasha ka soo qayb gashay ee dhamaantoodba ka waramay muhiimadda uu macallinku u leeyahay bulshada macallimiin badan oo u baahan baahida inaan aragnay markaan daraasadeynay ayaanu si sanadla xilliyada fasaxaan u qabanaa barnaamijkan tababarka macallimiinta barnaamijkan waxaanu qabanay muddo xidhiidha sanadkan waa sanadkii saddexaad aanu qabanaynay sanadadii horena waxa ka faa'iideystay macallimiin sanadkii koowaad oo kale ilaa 50 macallimiin baa ka faa'iideystay sanadkii labaad uu ka faa'iideysteen macallimiin gaaraya 65 sanadkanna waxa si guud imika shahaadooyinkoodii u daabacay macallimiin dhowr iyo 40 macallin tababarka waxaanu qabanay 21 iyo 22 bishii 12aad 2024 sanadkii hadda dhamaaday dabeecadiis ujeedka barnaamijkan aanu ka lahayn ayaa haysan kor ugu qaadi lahayn xirfadda macallimiinta iyo waaya aragnimada ay u leeyihiin dhigista waxbarashada run ahaantii halkan waxa ku qaadateen tababar aad iyo aad u qiimo badan marka loo eego mowduucyadii aad ku qaadateen oo ahaa kuwa taabanaya shaqada ummadda u haysan anu muddo dheer macallin soo ahaa oo iminka ilaa 11 sano ku dhow macallimiintaydii tababaradii soo siinay Mustafa ka fadhiya oday laftiisa meelo badan oo kale aan isku group ka ahayno isaguna dhinaca dacwadda ayuu tababaran ugu yahay marka xilligii aan anagu macallimiinta ahay inaanu fiilka ku soo jirnay maanaan heli jirin tababarada noocan oo kala ah laakiin waxa Ilaahay loogu mahadnaqaa maadaama maanta ururka dhalinyarada aynu haysanaa ay noo diyaariyeen jawiga aynu ku heli karna tababarada joogtada ee sanadlaha aqoonta waxa la yiraahdo aqoonta horto bari aan hees yar dheegay baa waxoogaa ka tiriyeen kasto imika wadahayn waa aqoontu waxbay hagtaa haddadkuna wuu halabsadaa adduunkuna waa hayaan hirdoogna lagu socdaa hogaankuna waa qalinka adigu kelmado noocasan bariga ku bedelayay macallinka aqoonta fiican leh wuxuu soo saarayaa isaga laftigiisu arday fiican kale xagga social media dhalinyarada iga dheeraynayso habeen dhawada waxaan ka arkay macallin saaxiib aqli ah oo ardaydiisa kamid ah kuraasta dambe haysta oo caagad biyo ku soo tuuray intuu kaga karsiyay dhacday ayuu dadna caagadii qaato uu cabay markuu cabay buu xoodka jannada Allah ka waraabiyo kii biyaha ay siiyay ka waran damiirka dadka halka inagu ku dhaxdhicilay baan isiro feer iyo laad baynu miiska halka ku kala dareerinay laakiin se isagu xigmad buu isticmaalay oo macallin kasto isku dayay inuu xun wixii uu garanayay wax ku sii daro ama wixii uu garanayay boorka ka yara jafo ama ugu yaraan isagoo og oo haddana bal wax sii kordhi runtii dadaal muuqda oo meel cad ku gaadhay baa macallinka u muuqda marka waxa weeyaan saaxiibkii Khadar Cabdi Ibrahim iyo gudoomiye Mustafa iyo Ahmed Maxamed Cadaad iyo odayo isagoo xubin muhiim ah oo ururka kaana waxaan leeyahay shaqaad weyn baad ururka la haysaan in halka ka sii wadnabaad dadaalkeen iyo ballankeenu uu yahay ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa jaamacadda Adnaadan oo runtii iyadoo inta ogaalkayga iyadoo aan lahayn kulliyad waxbarasho macallimiintu ay ka soo baxaan sanadkii qabata
intaas oo tababar oo bulshada lagu celinayo khaasatan macallimiinta iyadoo jaamacadaha waaweyn ay jiraan oo intaas oo kulliyadooda waxbarashada leh oo laga yaabo sanadkii hal tababar aan qabanin marka waan ku hablaynayaa jaamacadda aadna in macallimiinta sanadkii dhowr jeer ay tababar u qabato sidoo kale waxaan u mahad celinayaa macallimiintii tababarka bixinayay marka hore waxaan u mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala inagu asturi kuna guuleeyay tababarkan aadka muhiimka ah waxaan sidoo kale u mahad celinayaa qabanqaabiyaasha tababarayaasha dadaalka dheer ay u galeen si ay noogu soo bandhigaan aqoontan qiimaha badan waxa la yiraahday mahma Soomaaliyeed baa ahayd ana hadhay looma hadlay maxaa hadhay baa loo hadlaa kulli feedbackii hore waa la bixiyay marka tababarkan waxa uu ahaa mid furo ah fahamka iyo horumarinta xirfadaha iyo aqoonta macallimiinta kaasoo aan soo jeedinayo inaynu uga faa'iideyn doono shaqadeena macallinimo waxbarashaduna waa halka ugu wanaagsan ee bini'aadamka laga bedeli karo waxbarashadu waxay meesha ka saartaa faqiirnimada ka saartaa waxay meesha ka saartaa kala sarreynta bulshada nin danyara oo miyi ku dhashay oo hooyadii aabihii aanay waxba baran ayaa intuu wax barto madaxweyne noqda marka aqoontu waa shayga ugu weyn iyo hantida ugu weyn ee bini'aadamku hela weeyaan marka ururka uhdas runtii waan bogaadinayaa waxaan leeyahay meesha ka sii wada macallinimadu waa shaqo la qabto shaqada ugu wanaagsan weeyaan shaqo bini'aadan la qabto oo macallinimo ka wanaagsani ma jirto waa inuu markaa macallinku taa fahamsanaado weeyaan ninka gaadhi sameynaya bir buu sameynayaa ninka telefoon sameynaya bir buu sameynayaa laakiin qofka bini'aadan soo saaraya waa inuu fahamsan yahay mas'uuliyadda uu qaaday inta ay leeg tahay macallimiintaydii wax noo dhigi jiray qaar baan xasuustaa nagu odhan jiray anigu waxaan doonayaa inaan wasiir noqdo marka waxaan doonayaa si daacada wax idiin baro si halka aan rabo u gaadho xaqiiqatan way gaadheen qaar baan garaya macallimiin noo ahaa oo sidaa noogu bareeray oo kelmaddaa hortayda ka yidhi oo wasiir noqday markii dambe qaar kale baa jiray ula ganacsato noqday marka runtii waxaan doonayaa inay aqoonta iyo macallinimadu muhiimadda ay leedahay dadka reer Soomaaliland ay ku baraarugsanaadaan